ugu horeyn inta yar tixda waxaan ugu talagalay inaan idinka afar midhow wacdi gelina ama waxaan naftayda la jecelahay nafihiinana la jecelahay idinku soo bandhigo waxaanay odhanaysaa sida tan waxaan muddo badan didaayay waxaan dibnihii iyo dhawaaqa dibadda ka ilaalinayay waxaan ku daboolay uurka markaan arkay daayac muuqda waxaan damcay inaan ka qaado daboolkii daaha saaran haddaan dulucda hadalkayga u daadega degaldhigiisa dadkeennii waxaa dilooday diintiyo dhaqankii ka duushay dadnimadii waxaa dilaalay damiirkaa yurub u jeeda waxaa daayartii haleeyay asaagoo dacal ka dhaabshay maradan iyadoo dilaacsan iyadoo dacallada ka jeexan dawaarkana lagu sargooyey intay dad maciishad mooday waa afar ka saartiyo laba ka saar moogta dawaarlii inooga dalbeen shisheeya danaysto ku nool Maraykan intaynu xaraga ka doonay waxaan dugsi kuu ahaanin dabayshana kaa daryeelin jirkaagana daalacaada dadkoo idil daawanayo runtii waxaa aad u nasiib daraa adigoo horta qof kasta bini aadmi marka uu dhalanayo wuxuu dhashaa isagoo nasiib leh laakiin isagoo muslim aan idhaahdo laakiin nasiibka la isdheeryahay ayaa waxa ah inaad adigu ku dhalatay degal muslim ah ku barbaariyeen hooyo iyo aabbo muslimiin ah kuna barbaartay diinta islaamka bal ka waran taas hadaad hadhow markaad meel isku tuurisaa dafirto yacni nimcooyinka ilaahay ku siiyeyna aad dhinac marto oo sii wada waxay tidhi hablahan dalada iyo xijaabka duntii nabigeenu sheegay inay ku dadaan jirkooda intay diideen ka doortay waxaan laga dhigin dinteennuna aanay sheegin hablow dalada iyo xijaabku dadmada iyo doorsoonidiinu waa dahab iyo shay dushaada xariirku ah lagu dahaaray wadama laga gaadho cadceedda iminka yacni hadhow waxaad maqlaysaa oranaysa dee xuquuqda haweenkan doodana runtii anigu waxaan aaminsanahay shakhsiyad ahaan hal xuquuq oo inaga dhiman inaan jirin inay nahay hadin haweeney kastoo muslimad ah inay tahay gabadha adduunka ugu nasiibka badan yacni xuquuqday ku sheegayaan waxa weeyaan yacni sida ragga xifaaltan dhidid yacni dee tabta ragga dee maxay noloshaada u maareen aan mid idinku daray waxa weeye nimcooyinka dee aynu ragga dheernahay dee ayaa waxay tahay yacni maanta aabe iyo hooyo dee ayaa gurigeena inoo jooga yacni iyagaa gacanta inagu haya beri ka maalina mid aabbahay kale aad u tegaysaa kuma odhanayna orado biilka inoo doon maanta yacni waxay ku jirtaa nimcooyinka ilaahayna siiyey markaad u fiirsato xuquuqda sheegayaana waxa weeyaan tabta ragga dhidid yacni dee noloshaada maaree saasoo tahay iyadoo diinteenuna ay noo sheegtay hab iyo hanaan ayn ku maarayno nolosheena laakiin ka gadisanta iyadu mar walba inoo soo bandhigaan dad iyo diinta iyo xishoodka xayaha iyo dabacsanaantu diinteenu siday farayso rasuulkuna uu dardaarmay jannada waa dariiqyadeeda dad iyo digriga iyo quraanku ducada alla iyo salaada shaydaanka lagu dabraayay wadiirka xiga ibliise qulubta ku beera diinto damiirka bulshada la kaasho inta san kusoo gabagabinaad maasantii